wuxuu ahaa nin shaqadiisa yareyd ee uu ka shaqaynayay laga joojiyey wuxuuna noqday sabool aan wax laaga haysan. haddaba Khabyliim wuxuu ku soo biiray baraha bulshada isla sanadkaas 2020 gaar ahaan aaladda TikTok. fiidiyogiisii ugu horeeyayna waxaa daawaday 2 qof oo kaliya. labadaas qofna waxay ahaayeen aabbihii iyo qof deriskiisa deganaa. haddaba Khabyliim fiidiyowdiisa markuu ka soo wareegtay 1 bil wuxuu helay 9 daawasho wuxuuna bilaabay inuu soo badiyo muuqaalada uu soo dhigay application-ka TikTok. haddaba Khabyliim fiidiyowda uu soo dhigay waxay ahaayeen qaar qarxa marba marka ka sii dambaysa wuxuuna noqday qof caan dhalay ka aaladda TikTok maalmo yar oo kooban gudaheed. ninkan wuxuu haystaa diinta Islaamka wuxuuna sheegay inuu xifdisan yahay dhammaan quraanka oo dhan waxaana ka mid ah ereyada wax ku oolka ee laga soo gaaray ninkan. waa laga yaabaa in qosolku uusan bedeli karin adduunka balse waa midka ugu fudud hadda iyo kan dabiiciga ah ee aad kula dagaalami karta nacaybka.